जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा। क्या न करे क्या करे ये दिल, क्या करे ये दिल, क्या करे। Superstar Ajay magaciisa dhabta ahi waa Vishal Peru Devikan, waa atoore, director iyo qarash gareeye Hindi ah oo ka tirsan shirkadda Bollywoodka ee dalka India. Wuxuuna caan ku yahay in loogu yeero Ajay ama Jay Devikan, isaga oo xarafka ee magaciisa ka reebay si uu nasiibkiisa u wanaagsanaado. Actorkan wuxuu ka mid yahay atoorayaasha ugu caansan Bollywoodka ee dalka India. sidoo kale 25 sano ee ugu dambeeyay si joogto ah ayuu kaga muuqday dhanka fanka. Ajay jilayaasha kale wuxuu kaga duwan yahay in door walba uu sameyn karo, taasina waxa uu ku muteystay abaalmarino qaali ah inuu ku guuleysto. sida 2 jeer ayuu ku guuleystay National Films Awards oo dowladda Hindiya bixiso. Superstar-kan dadaalka badan waxa aabbo u ah Peru Devikan oo ah rugcada Bollywoodka muddo dheer ka tirsanaa, sidoo kale sameyn jiray akshinada ama ficilada halista ah ee filimada lagu soo bandhigo. dhawaan ayuu geeriyooday Ajay. aabihiisa Peru Devikan maalmihii ugu dambeeyay ayuu ka caawinayay xanuun dhanka wadnaha, isla markaa xanuunka awgii u geeriyooday. Ajay filimkii ugu horeeyay oo ku soo caanbaxa wuxuu ahaa Fall Awakanti. ilaa hadda shaqo uusan qaban ma lahan. filim walba uu xidigan jilo ammaan xad dhaaf leh ayuu ka helaa, wuxuuna leeyahay xirfado dabiici ah oo xidigaha kale dheer yahay. Superstar-kan waxa uu dhaxda atirishada lagu magacaabo Kajal Mukherjee iyadoo u heeso wiil iyo gabar, waxayna nolosha wadaageen 1999 ilaa haatan waa qoys ku wada nool farxad. सोचता हूँ मैं क्या चाहता हूँ, है मुश्किल तुझे वो बताना। मैंने सुना है कि मुश्किल बड़ा है, तभी चाहतों को छुपाना। है क्या सोचता हूँ मैं क्या चाहता हूँ, है मुश्किल तुझे वो बताना। 2 Abriil 1969 Ajay ayaa ku dhashay magaalada New Delhi. xidigan waa reer Punjab maadaama aabihiis Peru iyo hooyadii Feena ay Punjab ka soo jeedaan, wuxuuna si rasmi ah haatan u jiraa 50 sano jir. Ajay heerkiisa waxbarasho wuxuu ka soo qalinjabiyay Silver Beach School oo ku yaala xaafadda Juhi ee magaalada Mumbai. xidigan noloshiisa inta badan wuxuu ku soo qaatay magaalada Mumbai maadaama aabihii Peru oo Bollywoodka ka tirsanaa, sidoo kale curin jiray ama sameyn jiray akshinada halista ah ee filimada lagu soo bandhigo. Anil Devikan wuxuu la dhashay Ajay, waa fanaan isla markaana ah filim qarash gareeye fanka ka tirsanaa jiray. sidaa darteed xidigan qoyskiisa Bollywoodka isaga ayay kaga soo horeeyeen. Ajay isagoo dhalinyar ah ayuu ku soo biiray shirkadda Bollywoodka, wuxuuna riyadiisa rumeeyay 1985 isaga oo wax ka jilay filimkii Pyar Behna, waxaana filimka wada jilayay Mutun Chakraborty, Shakti Kapoor iyo kuwa kale, waxaana aad loo amaanay doorkii uu ku lahaa Ajay, isla markaana magaciisa ayaa kor u kacay. waxaana ugu wacnaa in filimkii ugu horeeyay uu hogaamiye ka ahaa ee lagu magacaabi jiray Fall Awakanti uu superhit noqday. Ajay Devikan wuxuu box office-ka ku garaacay Anil Kapoor, Sara Dev oo ay wateen filimkii Lamhe, waxaana iska lahaa Yash Chopra shirkadda lagu magacaabo. Superstar-kan Ajay ayaa ku dul socday Anil Kapoor, Sara Dev iyo Yash Chopra maadaama Ajay filimkiisa Fall Awakanti oo guul taariikhi ah gaaray halka Lamhe uu flop noqday. Ajay ayaa helay abaalmarinta jilayga ku cusub fanka. Actor-kan ayaa jilay filimo kala duwan, waxaana ka flop garoobay 4 filim, inta kalena waxay u noqdeen best film, isla markaana noqday actor-ka aadka loo wada jecel yahay shirkadda Bollywoodka ee dalka India. Ajay haatan
diiradda waxa uu saarayaa shirkadda Bollywoodka dhanka daaragtarnimada ama filim soo saaraha ee shirkadda Bollywoodka. Superstar-kan wuxuu ka mid yahay aktarada ugu firfircoon ee ka tirsan shirkadda Bollywoodka ee dalka India. मैं क्या चाहता हूँ है मुश्किल तुझे वो बताना मैंने सुना है कि मुश्किल बड़ा है तभी चाहतों को छुपाना है क्या सोचता हूँ मैं क्या चाहता हूँ है मुश्किल तुझे वो बताना चाहतों को छुपाना